بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إلى بما تسكال تبارك وتعالى إن كل مية إن صورة قليل كلن كان عنوان كيسا ومحاضرة عنوان كيد وحوي سيده هريب الله إعلامي فقه المصائب مصائبتا inugu dhacaysa iyo fahamkeeda in si fiican loo fahmo oo fahamkeedu uusan kula qaloocanin si khaldan inaadan u fahmo sababta muxaadaradan keentay waxay ahayd munaasabadu waxa weeye waayahan waxaa caalamka ku dhex jira oo aad u faafaya oo qayladiisu ay meel walba qabsatay cudurkan ay ku magacaabeen fayraska corona oo ilaa dhowr kun dilay boqolaal kun wax ka siyaasanna ku dhacay xanuunkaas ama caabuqaas markuu soo kordhay ayay culimadu ka hadleen mid muxaadaro ka jeediya mid khudba kaga hadla mid kelimo ka jeediya caalamul islaami carab iyo cajamba waa laga hadla waxaa looga hadlay oo culimadu uga hadleen wajhu nadarka shareecadu qur-aanka iyo sunnadu sidii ay u dhigeen masaa'ibta cudurrada xawaadiista dhacaya sidii qur-aanka iyo sunnadu u taxliiliyeen ama u sheegeen bay culimadu uga hadleen kadib waxaa ka dhalatay kacdoon ay hogaaminayaan dad isku jira dad fahamku la qalloocday muslimiina iyo kuwa mulxidiin oo diinlawayaal ah oon diin lahayn kacdoonkaasi wuxuu ku wajahan yahay in culimada arrinkaa ka hadashay la weeraro lagu tilmaamo inaysan waxba fahamsanayn la aflagaadeeyo la yidhaahdo waa jaahiliin la yidhaahdo waxayna garanaynin ba ka hadlayaan bal in wadaadadii culimada la dhaafaba ilaahay la caayaba walciyaadu billaah weliba dad soomaali ah yaa ilaahay ula baxay inay caayaan way ku jeesjeesaan oo aflagaadeeyaan marka meesha waxaa ka soo baxday marka inay muhiim tahay in masaladan ruuxoogaa sidii ka yara xeel dheer inaan isu dul taagno maalan haddaan tusaalayaal ka soo qaadanno soomaalida qoraalladay sameeyaan commentiga ama tacliiqaadka ama qaar mowduuc ahaan uga hadlayba mid baa wuxuu leeyahay magacyada inaan sheego muhiim aha wuxuu leeyahay waxaa aada looga argagaxaa culimada ka hadashay mowduucan waa fayraska corona waa hadday carab yihiin iyo hadday soomaali yihiin waxay u hadlayaan buu leeyahay dariiqa ama qaab aan cilmi ahayn oo maxay leeyihiin waxay leeyihiin ilaahay baa dadka ka aargoosanaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii laynaya waxay leeyihiin ilaahay baa dadkii ku ciqaabaya hadallada noocaas oo kaleeta waa hadallo aan cilmi ku salaysnayn wuxuu leeyahay xanuunkani waa xanuun la yaqaano siduu ku dhasho bacteria inuu yahay noocuu ka sii yahay waa wax la garanayo culimmadii ku takhasustay cilmiga bakteriyaadka iyo biolojiga waxay bilaabeen inay raadiyaan daawooyinkiisa si looga hortago tallaalkiisa daawadiisa inay raadiyaan isla markaana waxaa suurtagal ah buu yidhi in sidii cudurradii horeba looga hortagay kanna in looga hortago oo daawo loo helo marka cudur laga hortagi karo oo sababtiisana la garanayo culimadiina hadda ay daawo u raadinayaan in daawo loo helana ay suurtagal tahay see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada ku ciqaabaya see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada kaga argoosanaya see baad u leedihiin ilaahay baa addoommada ku laynaya
waxba meesha kuma haysaan wadadow halkaasuu ka buskicay wuxuu ku sii daray su-aasha muhiimka waxa weeye annaga culimada haddaan nahay maaha inaan laablakac ku hadalno mowduuc khadhaadh oo kanoo kale ah inaynu iska hadalno cilmi la'aan ma ah annagoon u noqonin dadkii khubarada ah ee arrintan khubarada u ahaa sida qur-aankuba in amrayo fas'al bihi khabiiran walaa yunabbi'uka midlu khabiir sida qur-aankuba in amrayo innagoon khubaradii u noqonin inaan laablakac ku hadalnaay sax maaha inaan xujo la'aan iyo cilmaanaan iska hadalnana maaha inaan iska dhahno dadkii baa ilaahay laynaya oon iska dhahno dadkii baa ilaahay u cadhooday oo aan dhahno ilaahay baa dadkii ku ciqaabahay hadallada noocaas oo kalea looma baahna ninkaasi aayaduu daliilinaya anuma aqaano laakiin nin waxoogaa uun diinta wax ka garanayo u muuqda mushkiladiisa wuxuu diidan yahay oo ka dagaalamaya in la yidhaahdo musiibadan iyo cudurkan waa cuquubo ilaahay addoommadiisa ku ciqaabayo dhakhaatiirtii baaba garanaysa seebuu cuquubo ku yahay buu taagan yahay ayib waa maagay marka culimadii buu aada u maagay oo uu ku sheegay inay aqoon darro iyo jahli hayo wuxuu intaa ku sii daray haddii cudurku cuquubo yah oo argoosi ilaahay ah dadka ilaahay u noole diinta u dadaalaya cibaadada badan ee saalixiinta ah ayaa cudurrada adduunka ugu xunxun ku dhacaya dayib ma la ciqaabay buu leeyahay kuwaas noocaas oo kale waa shubha waa xanuun buu leeyahay waxani midka masaajidka ku jirana waa ku dhaca midka baarka khamrada ku jirana waa ku dhaca dayib waa kelimo sax dadkoo dhan waa ku wada dhaca laakiin cuquubo ilaahay ma yahay mise ma aha ma yahay wax ka dhashay bini aadamka falalkiisa oo dembi ay galeen ka dhashay mise waa wax iska dhashay ayib kaasi saasuu u dooday mid kale wuxuu yidhi waa soomaali isagana wadaadku waa wadaad arrinta ka hadla wadaadku wuxuu yidhi caqliga naga ma ixtiraamin nagamana xishoonin hadduu yahay cudurkani wax ilaahay soo diray muxuu dadka xajka iyo cumrada ugu diidayaa buu ilaahay wuxuu soo diray oo addoommada ku soo diray oo ciidan ka soo dhigtay see buu xajkii iyo cumradii ugu diiday dadka war wadaadow caqliganaga ha ku ciyaarina oo caqliganaga ka xishooda waa soomaali baa saa u hadla waa mid kale mid kaloo saddexaad baa wuxuu leeyahay caqiidada dadka iyo camalkooda in cudurkan lagu xidhayo waa khalad maxaa yeelay cudurradu gaalo iyo muslimba way asiibaan beled kastana waa ku dhacaan xataa beledka ilaahay xurmada leh makuuba ku dhacayaaba marka maxaa gaaluu ku dhacayaa iyo gaaluu ka bilowday iyo dadka macaasidooda iyo kufrigooda iyo xageed ka keentay warkaas halkaana mid kale ka buskixi mid kale wuxuu yidhi shubkeena wuxuu yidhi daacuunkii cumwaas daacuun cumwaas waa sanadkii 18aad waxaan u maleynayaa hijriga inuu ahaa daacuun ka dhacay shaam xilligii cumar muslimiinta u talinay oo dad aad u fara badan oo muslimiina laayay saxaabo badan ku dhinteen daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu waliba xilligii baytul maqdis la furtay buu ahaa daacuunkaasi ma wuxuu ahaa buu yidhi ilaahay inuu muslimiinta u cadhooday muslimiin buu laayay shubhadaas uu keenay mid kaloo shanaad wuxuu yidhi war waxan waa cudure ka hortag iyo dadaal buu u baahan yahay wax walba diinta xaggeeda looma tiiriyo buu yidhi waxaan wuxuu u baahan yahay in la raadiyo qaabkii dadka looga hortagi lahaa loo daaweyn lahaa laakiin wax walba haddaad diinta salka u saartaan see wax idinka yihi mid kale wuxuu yidhi khatiibka arrinta ka hadlaya mushkiladiisu waxa weeye diinta unbuu garanayaa laakiin culumta kale aqoon uma laha halkaasaa laga soo galay mid kaleeto wuxuu yidhi oo ilaahay markuu addoommadiisa ciqaabayo ma dagaal buu kula jiraa addoommadiisuu abuurtay miyuu la dagaalamaya har waxaase cilmi la'aan waay ma intuu xanuun yar sameeyo yuu haddana dirsanaya addoommada ku dirsanaya miya isagoo adduunka dhanba hal mar halaagi kara muxuu uga baahan yahay inuu dirsado ciidan yar virus inuu dirsado muxuu uga baahan yahay waa soomaali kale mid kale wuxuu leeyahay oo ilaahay ma ciidan kale u waayay
ma ciidan corona dhaamu ilaahay waayay buu leeyahay markuu corona soo dirsanayo waa Soomaali kale wuxuu ku daray dawladuhu hadday iyo bini aadamku hadday daawo u helaan xanuunka oo ka adkaadaan soo macnaheedu maaha ilaahay ciidankiisa baa laga adkaaday ya haddii daawo loo helo soo ilaahay ciidankiisa lama jabinin buu waa mid kale oo Soomaali oo jeesjeesaya waa kuwa iyagu kelimatu kufri oo cad oo ilaahay caayaya aflaga deynay hadalkooda ma soo goorin karo anida kaga kaaftoomo wararkaas waxa qorayad arkaysaan waa Soomaali qaar baa waxay ilaahay la iska celiyo ilaahay dagaalka inuu wali jiraan iska celino Soomaali gaala ka soo dhaxbaxay Soomaalidu Kirishtan baa ka soo dhaxbaxay mulxidiin baa ka soo baxay kuwa aan diin lahayn baa ka soo baxay kuwa aan ilaahay rumaysnayn baa ka soo baxay Soomaali boqolkiiba boqol waa muslimtaynu taagnaan jirnay warka laga daba iimaan هذا السوشيال ميديا هي واحد القرية كومنتيجا فرقة هي واحد هذا يعني لا صعتان وات فهمي كرتان إن بدنا الصومالي كم إذا إن الدين توهر كذا قاتشير مركز سيدي هو أردتم معه ولا السوق عليه وحاول الرامد كريستان بان نهاي أنا وكريستان بانو نهاي أنا إله دتك عذاب يمر ميسني أنا ودتك وأن حريصنا أنا ودتك كي حتى أنا اللي بودو عيناه إله القرآن كوكو الرمي يدتك عذاب هياي إله رنتها ما إله بايبل كشيء إن حريص تبدل يعني أنا أقول رميسان كاسة إله بايبل لما يقان القرآن لما يقان حتى بايبل ما يقان وحوجا أفكار لوج اللي يدور كلمة لكن حتى بايبل كما يقان ولا كريستون بوسنا أقول ولا تاريخ ذي كريستون كوسنا أقول كريستون محي أدون كوسا صمية اسكدا في تاريخ ذي هراء حروب الصليبية إيو مجازيرتي جيستين إيو اسكدا عصر كان هدا أنجو كريستون محي جيستين أدونك قميسي يجي رجال بيتك كان يسدوا لسعوتي ما أهين مياه كريستون ما أهين أدونك سيجي أفريقيان كي بدها اللي قدبين إيه مرايكني بيلو بيلو جيست يا سميني يا كريستون بس سميني أدونك يا نيوكلير كوبا بإيه سو كريستون ما هين وقتين هذا أنشوفنا سربيا يا بابي سو كريستون ما عالم الإسلامي يا باشا الكوكراعي سو كريستون ما وأنو نحريس بدلنا هايو أنا حتى كينا خلافه ودعينا هذا هو أنت كنيسة لقى قال قيمة واحد لكن كريستون تاريخ دي سمت قاني ولا بايبل بعد قرنين مساكين تصوالي ذا كريستون كشيء قالوا بين شيكتنا مشكلة ده أقوين وحوي لقمات بيقالوا بيني لكن حتى الدين تيجالين ما قرنايا هذه إشكاليته مركميد نوعاسة ترى إستجانا إلهي عاي الدين تنا عاي طيب أنت سي وأسباب تكنتي إن الموضوع عن كهذا الله حكيني لأنه علماء سي موضوع وجهلين أيا واحد للسي إن إلهنا لجو حد قدبه علماءنا لجو حد قدبه ديننا لجو حد قدبه لا بقى حد ويسان هوري وشيء قارن دين لهين يقوى مسلمين لكن مسألة كو قلوعتي إن المركب حقا يستدرو تاجنون عدى إنه وقت هو كوبي هي لكن وحنا سكوده إن شاء الله تعالى إن سوكوب كوبه مسألة مركب كهالله إنه مصائب ترعيسة سيد القرآن كي يصنده أيوقع حين وحي هوستك تا مبدأ اللي يلاحظه مبدأ القضاء والقدر إلا الرميانة وحي كم يتاهي تيرارك إيمانك اللي حدا ميت كم يدواه شنت تير الإيمان ميت كم يدواه ويان وتؤمن بالقدر خيره وشره إن قدر كالرميسه يوحو إلهي أدون كان قرشي يوحو الصمين أيوه إن أدرميس قضاها يقدرك كيس كوفي عن يكيس كوحمبا طيب صحابتنا ذاتك مبدأ بيني ويكبر النقون شيران وحن إجماع الإسلام أقول هاي مبدأ الصلاحان روحي بيني يمسن مسلمين هل الرميو الإيمان بالقضاء والقدر محل جور هذا وحل جور هذا أفر الرمود إن أدرميس كو wax kasto oo dhacaya ama dhici doona inuu ilaahay cilmigiisa ku hormaray oo ilaahay horay u ogaa inaad rumayso soo qodoma
إن الله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقضب كلا بعد وحويان وحول بور دعية أنتو صندعين ألا مركو أوغادي كدب هوري أسي أوغا وقري هدنا وحول بور دعية وسي قريه ووحا لغو قري الديوان كوين اللوح المحفوظ كي وحول بكو قريهين أيضا وحا شيغيسا أيضا فربضا آيات دي هذا اللي نقول تشيني مغرب كيف كمده ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إنت نان أبو رمبا كتاب بيكسي قري سمارت وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وحلول كدحديس كمقا أما الصمد كمقا مجرى إلا ميلبك قرين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمامك وكتاب مركا وحول بوا قرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر خاتك عيسى مركا إلهي هرو وقاعد وحكسته وأنا قري سو قضب كل هذا ما قضب كسد حادي وحوي شيء كستو أدونك كدعيا الله تبارك وتعالى دوني دي سوق دعيا المشيئة والإرادة شيء صن إلهي دونينا كون كيسا كما دعي كرو وحكستا أو دعيا إلهي وحكو دعيا قدرة ديسا دونيتان كيسا إرادة ديسا وحسن دونينا ما دعي كرو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إلا أن يشاء ربي وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم يعني مشيئة إلهي الدوني التيسة وحكا أصبح يمجر ومرتبط الصدحات سوما مرتبط أفراد إيمانك قضاء وقدر رمي مركا اللي قوليه مرتبط أفراد وحوي إن إلهي تبارك وتعالى أويهي متك وحوال بأبوره ورو أوغاديكو وقري اللبا مركو دعي ربنا ودون إنو دعو صدح مركا أفرادنا إستقى أبورو سميه وحسن إلهي السمينين كون كمتشر ومن تشري كرو صوما أما هالنقضة الضوامضة أما الضوامضة أفعاشه وحي السمينين أنا هالنقضة كل إلهي بأبور الله خالق الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إذن كإستقى إذن أبوري عمل كينا إذن كإستقى أبوري مركا ومرتبط الخلق واحد marka lagu leeyahay qadaha ilaahay qadarkiisa rume afarta martaba laga wada afartaas oo saas isu daba yaala rume marka sida u rumayso waxa walba oo dhacaya in ilaahay horay u ogaa inuu horay u qoray inuu isagu doonay inuu isagu abuuray oo ahaysiiyay oo soo saaray marka saa u rumayso midhaha aad ka faa'iideyso wuxuu yahay thamaradu waxa waaye mabda'a markaad rumayso noloshaadu waxay noqonaysaa nolol isu dheelitiran nolol miisaaman waxaad weydayna murug iyo stress iyo cudur kuguma rido waxaad heshayna kibir iyo isla weynan kuguma rido nicamkuna shukri bay keensan waad ka shukrin نقمك إيا مصائبتنا واتكشكرين واتكو صبري سيداس دراديد روحا مبدأ الرميسا نولوشيسو ونولل يسود اللي تيرانو ميزاما واحد وانا معناها آيات الوشة يقول ربي تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير محال مبدأ الوشة لكي لا تأسوا على ما فاتكم waxaad sugayseen oo rabteen oo jeceshiin oo idin dhaafood weydeen inaydan u murgin hayla waxaad rabtay hadaad weydo waxa kaaga filan inaad tiraahdo soo ilaahay saa ugu matalgelin ma qornayn ha horu u qorna inaanan helin wakafa maxamed isugu dhibiba wala tafrahu bima ataakum
wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin hayl wuxuu ku siiyey hadaad ogtahay inuu isagu ku siiyey kuu qoray kuu qadaray asagu kuu abuuray horeyna waxaan u qornaayeen maxaad u kibriba xoog iyo xeeladaad sheegata ma jiro Soomaa ilaahay baa ku siiyey isaga qoray isaga qadaray kibir male marka kibirna male argagax iyo stressna male markaad mabda'a rumaysanto saas daraadeed waa mabda'a muslimiinta iyo mu'miniinta rumaysani xaalad kale kastoy ku sugan yihiin noloshoodu waa nolol degan waay nolol xasiloon waay nolol aan stress iyo wareer lahayn ka dhibanna waa sabraya ka barwaaqada haystana waa shukrinaya walaysa dalika illa lilmu'min mu'minkum ba iskale nabiga sallallahu alayhi wa sallam ومسألة مدة آيات كلا أي شيء يسور بالله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه روحي إلهي الرمية قلبي يسوها نونيا أو تجدونه طيب الدواء أنون ما أن عذر رضو مصيبين كإلهي كانوا كمد مين مسا كمد ما مصيبين كما كبحسين مسوا مصيبين عذر رضو مصيبين كمدي طيب musiibooyinka miyay iska dhashaan mise cid kala dhalisa mise ilaahay baa dhaliya oo adoomada ku dira meesha wadaadada lagu haysto halka waa wadaadada waxa lagu haystaa maxaad u leedihiin musiibadan xanuunka ah ilaahay baa adoomada ku soo diray meesha lagu haystaa wadaadada طيب أما قاركود وحي ليهن إن لي يدهد وعيدا إلهي صادر وقلت قرآن الكريم كإله حكوش شيء السماوات كي يرنون لك بعيدا مدي سوين يتشوغان ولله جنود السماوات والأرض علماء وحي دادان وجموع السماوات والأرض نولك إيا السماوات كإسوغين تودي وحا كل حنولو دان عيدا إلهي واحد فلو سلط الله أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم بوي سمعاني هدي إلهي مخلوقات كي سكوا أغير كأغير أغير ضعيفا وعالم كإنتي سكلا كسا لدي لها وكأت كان إياه مركا معناه حلقة وذا وحول بإلهي بيؤه قانسيهن وحدو أمر سيو وأمر قادنا يعني إلهي أمر كي سكوري ما كرمتشر مركا ساوحي ليه وحكم إذا ملائكتا سماوات كتشوكتا وعيدا الله وحكم إذا تشينك إنسي قدول كتشوكا إيه غير كود طيب حديث باكرة علماء قارقود حسن أي كدغ يان قارنا ضعف كشيغيان حديث كاس وحو لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم أي حهدلنا عيدا كإلهي ويناوي علماء ضعف بكشيغان من حيث المتن من حيث المعنى نضعف بيكون شيغانو وحيليهن لأنه أي حق إن لعنا لينو أقول هذا لبا الشيء ويقول لقورين لعنو كمدي طيب مركا إن إلهي تبارك وتعالى مصائب تنكسو ديريا الضوامضة ويحقي سكا إيمانيان ويعقوبيهين قرآن كاقيحي مركو إلهي كهل لهي فرعون يقوم كيسي وحو الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مركي لك رواية مضح أذيقين أيو إلهي وحكو صدر الطوفان ضادت يالروبب يالطبيلو أي إلهي قدري يا صدري فأرسلنا عليهم إلهي وحكو صدري وحكو صدر أيح بيرهودي دلقي وحول بكبابيه وحكو صدر قمل كا سوس كبال كيدا هذه قلب بيرها قلمية منشربة وهكذا وهن حشرات إلهي كو صدري وحكو صدر الضفادع وبال كان لي هذا رها قليو إلهي الرح كسو فصاحي الرح بقى اللي وحي قابل اللي كسو فصاحي وعيدا إلهي قليو وحو إلهي كسو دري إسلايقا ويوحا اللي كسو دري ديك بقى اللي كسو دري ديك بقى اللي كسو فصاحي
aayaad ilaahay waaye oo la cadcadeeyey la kala dhigdhigay markii intaasoo dhan lagu soo diray kadib fastakbaruu mayna waana qaadanina waa isla weynaadeen way sii kibreen wa kaanuu qawman mujrimiin marka yaa soo diray waxyaalahaas xasharaadku ka mid yihiin yaa ilaahay baa ku soo diray addoommadiisa ninkii le ilaahay ma soo dirinow ama qur-aankaadan garanaynin oo jaahil baata ama mulxid qur-aanka macnihiisa diidan baata labadaa mid waay ilaahay baa addoommada ku ciqaabo oo ku soo diraya waxyaalahan cilmi darro ninka ku tilmaamay iyo laablakac ninka ku tilmaamay yaa ima inuu jaahil iyo qur-aankaba ka warhaynin yaa ima inuu qur-aanka macnihiisa inkirsan yahay labadaa mid waay ayib allah soo diray masaa'ibtoo dhanna waa sidaasoo qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu ka cabiray في سورة الأنعام مركو إلهي كهلي ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أمضى أيان حق هذا الرسول أدرنا النبي محمد هرتابا أمضى الرسول أدرنا طبعا الرسول شيء مركي بينيين ولا كيري ومضح هذيين الله وحولي فأخذناهم بالبأساء بأس بنكو قبرني باسكم حوية علماء حيلي وفقرك ينولشوا حريري كشا البأساء والضران وحيلين يكون فسريان الأسقام والعلل العارضة في الأجسام وحنون رضا وعذر رضا ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء نلشي لقعري فقري أسعارته كعدي سعر بر والضراء عذره لعلهم يتضرعون سيئله وتضرعان يا كصدري يا صدري الله تبارك وتعالى قرآن كعديني طيب halka waxaynu marka kaga jawaabnay quraanka kariimka xadiista nabiga waa u tagi doonaa si cad wuxuu u qeexay masaa'ibta ku dhacaysa dhulka aadamaha ku dhacaysa noocay dooni ha noqotee ilaahay baa soo saliday ilaahay baa adoomada ku soo diray tabaaraka wa taala ilaahay baa abuuraya ilaahay baa salidaya ilaahay baa diraya ma wax iska dhaqaaqayo iska tasarrufaya ma waa wax ilaahay ku socda iraadadiisa iyo abuurkiisa iyo soo saarkiisa ku socda waa طيب qodobka inoogu xiga wuxuu yahay isagana u baahan inaynu ka jawaabno markuu ilaahay inuu soo saaray uu quraanku sugay masaa'ibtan dhacaysa haddana quraanku wuxuu isku xidhay musiibooyinkan dhacaya iyo aadamaha ficilkiisa musiibooyinkana inay ku imaanayaan sabab bini aadan khalad bini aadan galay macaasi iyo dunuub gaalnimo iyo ilhaad dambiyo in ay masaa'ibtani ku imaanayso sababsanayso haddana quraanka qeexay sidaas daraadeed warkii ahaa ma dadka ilaahay la dagaalamaya muxuu ahay cudurradan cuquuba loo soo diray miya ilaahay baa dadka leynay ilaahay baa ku ciqaabay warkaas cilmi kuma salaysan waa iska caadifad sax ma maxaa daliilu aayadaha quraanka aayada aad u fara badan waay waxaa ka mid ah qowluhu tacaala wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an kathiir ما أصابكم من مصيبة وح الله وحي مصيبة إذن كل عض إذن كمر عضو وح كستو مصيبة إذن كل عي نوعي دونها أهات فبما كسبت أيديكم صببت يدو وحوي وحي قعمه نشقيستين وحالت ما دين با السبب طيب أيدك الله وحولي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وحي دبكو غاري مصيبه كوغو دعداي نفتادا سببها ايات كلا الله وحولي اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم دغالكي وحي توماين markii la jabayo saxaabada wax soo gaareen oo su'aashani timid maxay ku dhacday anna hada allah wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum naftiina agteeda ba jabku ka ahaada idinka sababsaday jabkan idin gaaray iyo cadowgiina inuu dhib idin gaarsiiyo طيب وحكمده آيات رب الله أو يوبقهن بما كسبوا كوا بدل لجو هلاجيو
waxa loo halaagayo musawada ugu dhacaysa wax weeye bima kasabu hadaa tiraahdo maya waxay kasbadeen ma aha markabkiiba motorkiiba ka halaabay warsheeqo waxay kasbadeen ma aha waxa waa wax la fahmi karo markabkiiba motorkii ka halaabay cilad baa gashay cilad bay la halaagsameen ee ma aha dambi ay galeen ilaahi la halaaga ayada quraanna wada aqriisa sheekh baad iska dhigaysa shunu hada soo wax la yaab lama wax ajiib ayad kale alla wuxuu leeyahay wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat sababiyya bima qaddamat wax gacmooda hormarsadeen waxa kamida wama kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ayadaha macnaha sheegaya marka way farabadan yihiin ku dheeraan mayno walanudiqannahum min al'adab al'adna duna al'adab al'akbar la'allahum yarji'un مصائبته إن عذاب تهينا أيضا ذا شيء سوما إلهي بعد ما ذكر عذابه كل ينيا وخلط نكيري أيضا حجاي مري ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وحنودن سينينا عذاب كي سكيي ومتك الدنيا ده دون العذاب الأكبر عذاب كي وينا سكديس أما كي راب عندن سينينا كي وينا سكديس لعلهم يرجعون سيؤصون نقدان عذاب كلا ددن سينيا سيؤصون نقدان ألا عذاب كعبري ومصائب تكون عايز وبارها والضفانتا وعذردا وقطرا وانا بتقولي الردا مصائب تكون عايزة أيا لجودا العذاب الأدنى إلهي مك عذاب كعبر عقوب كعبر طيب أيضا معناها شيء مركوا فربديهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا حديث أسامة بن زيد ورسولك صلى الله عليه وسلم مركو كهل ضاعونك إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم ضاعونك هو عذاب رواية كالأساس إلى هذا إن هذا الوجع رجس وعذاب رجس وعذاب حنون كني ضاعونك وعذاب إلهي أوكوها لاقي أمده إذن كهرين وقد بقي منه في الأرض شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا ومض لغو عقابة بأمرك رلو سودج لكن دولك قاربا كغا حري حنونكي إساقا ما بابين مربو صوك عيا مرنوا تغيا أبو النبي يقول صلوات ربي وسلام عليه فإذا وقع بأرض ضاعونك هدو دولك دعو فلا تخرجوا منها دولك أو كدع يدي تشوكتي سنكبحن وإذا سمعتم به في أرض دلوا كدع هداد مقشانا ومركا أيضا تشوقنا فلا تأتوها هوتجين هجلنا حديث كاسي وحديث صحيحين كسو صاري وفايدين يا عذر كداعون كل هذا أسل كي سمركو بني آدم ككب لا بني أمد إلهي عذاب يبقى لجوها لاقي علماء معناها ضاعون كيسكو خلافان وقاروا إليهن حنون كستو عام وبني آدم كباب يضاعون بالله سأصدرت بقاركود وحيسيين عذرادن فيروس كان كل بكعية النوعية ذا كلا قدسين أبتيرك كلا قدسين له ابن آدم كبابين يقارب وحيسيين أحكام تداعونك لأن علماء ذي القارب وحيكون فسيران داعونك إنه يهي عذر كستو عامة قارن وحي ليه هو عذر خاصة قنشداء صوبحة سيقونية شركة أقبتة حديث كنا كاستا معنا هذا بوحو تشينيا داعونك إنه يهي عذر خاص حديث خاصة قصاره المهم النبي صلى الله عليه وسلم أوفي يتصدى سيدا يعني ولا تعامل داعونك عذرنا نوعا وكلا سوء ولا تعامل وسيدا هدا أدوك ولا تعامل يوه وحلي الحجر الصحي ماشو كد اللعي أنت كتشرتنا إننا صابحين أنت كم قلنا إني سنجلين سأدوك حتى قابك أمد داويني نبي محمد داود داوية صلوات ربي وسلام عليه ما اختار بوها يا جزيرة العرب وكفري ولقي علمي قد اخترني بدل ما أخرسني صلوات ربي والسلام عليه لكن هو وحي الربي واحد وحي الربي ونبي وحكو داوينا يا صلوات ربي والسلام عليه طيب تانا وحي تلمانتي والنصوص تاسي تلمامين حنون نذا مصائب أي حنون نذا يعود الردو كم بديهين إن أي كو إيمانيان سببت بني آدم كالذنوب تيسين كو إيمانيان آياتها فرها بدن وكلا سوقح ninka yidhi marka bini aadam dambi uu galay sabab uma aha masaa'ibta dhacaysay yaa ima quraanku jaahil ka yahay yaa ima wax way waa inkirsan yahay amrani ahlahuma mur طيب
waxaan tilmaamaynaa hadda masaa'ibtan dhacaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommada uu ku ridayo xikmadda ku jirta maxay tahay waa arrin muhiim ah inaynu baranno maxay tahay xikamka ku jirta laanna ilaahay tabaaraka wa tacaala sharciga uu jideeyey axkaamtiisa sharcigana xikam bay ku salaysan tahay afcaashiisuna xikam bay ku salaysan tahay ilahay wax iskama sameeyo soo ma cabad iyo ciyaarna wax isagama sameeyo laakiin wax uu sameeyay xikmad buu ku salaysan masaa'ibtan dhacaysa marka cudurrada abaaraha dhulgariirada yani colaadaha masaa'ibtan dhacaysa bini aadamka in badan baabi'inaysa halaagaysaay xikamka ku jira maxay tahay maxaa xikmadoo ku jira ayib ilaahay tabaaraka wa tacaala xikam aad u fara badan ayuu ka leeyahay xikmadaha waxaa ka mida ku jira addoommadu markay kibraan oo qooqaan oo ishalmaamaan in la xusuusiyo inay ilaahay u tadarrucaan haddaan soo marnay lacallahum yatadarracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika فأخذناهم بالبأساء والضراء مع حنوننا إيو فقر الله قبتي لعلهم يتضرعون سي إلهي أقول تضرعا لأن إلهي الله يسكو مسكين يو لولك الله يسرقو لبر يو حكمة دوين واحد عمل إلهي تعالي هاي باكرنا الشيء الضوم كيو اللي إدبيين ويكدلت سو حكمة دوين ما لأن هدان ليس إدبينين بني آدم كوا كبريا ودقاقيا wuxuu sanahayn baa ismoodaya asagoo kibirsan oo cirka isla marhayo oo wuxuu sanaa ismoodaya ayaa waxoogaa xanuun yar lagu qabanaya markaas ay xaqiiqadii soo baxaysa hadduu ilaahay yaqaan gacmuhu taagan hadii kala cabaadkiisa dhamaanay sooma cabaadkiisa la joogin sidaas daraadeed la'allahum yatadarracuna wa xikmadda labaadi wax weeye adoomadani inay ilaahay u soo noqdaan oo khaladaad kan keenay masaa'ibtan inay ka soo noqdaan iyadana masaa'ibtu way u iimaanaysaa walanudiqannahum min al'adab al'adna duna al'adab al'akbar la'allahum yarji'un say u soo noqdaan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إني أضمد التوبة كينان إلهي أصول نقدان إن بدلوا أيها كم إذا ويد عدا إن مصيبة أي سبب النقطة إنه إلهي حصوصته أصول نقدان حقرنا يا قصون دad kan ku fogaaday fawaaxishta iyo zinada iyo qashinka ku fogaaday dhanka karana daroogada iyo qashinkan ku tagay oo nolosha ka dhacay ayaa waxa ku dhacay cudurka la yiraahdo AIDS baa ku dhacay markii AIDS-kii ku dhacay waana muslim AIDS-kii markuu ku dhacay ayuu wuxuu malihiisu u batay inuu dhimanayo muxuu sameeyay markaa باركي خمرة كسو بح زينتي كسو بح حمانتي كسو بح مساج كسو قل نيكي مدتو سين نولايو مركي ومردبان صلاح يهجاك يتوبت يصون يصلاة يوناك خاتمه ونكس أدون كهدين للدين لها أو عن عذر كاللجور ذين صو حمانتكم مردنتين يا عذر كيف محقول النقضي لعلهم يرجعون إنه وصل نقض إلهي تبارك وتعالى صايبتني مركب سوعلين أدومدي اللي سوعلين قارن صون نقولين باكرو سي كبرية كوا إلهي وحكولا رقم يا مركي سي كبران سنة لنا سنة الاستدراج يجا مركب الله سيتدارين ولا سي لقوين كدبنا ولا تخلص طيب مركب حكمة الله بعد وحوي أنا أدومدي صون نقدان حكمة الصدق هذه وحوي إن إلهي تبارك وتعالى عدو جيسا يقال هذا إنه كعقابه أيضاً وحتى البام يا أيضاً بدنا القرآن ككمل مركو إلهي أمضى دورة كسوها الله سورة العنكبوت الله وحيري فكلاً أخذنا بذنبه أمضى مد والبوان نقبلنا الذنب جيس السبتي سنة وقبلنا قال لي الحادي الذنب أي كلام بالله قبت فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إلهي وحكوها لاقي ضبيل قرور حوتا بالغو بابي قالوا حلقوها لاقي قيلو
qaar dhulka la gooyay qaar biyaa ilaahay ku diray oo biyaa halaagay kulligood laakiin maxay sababsadeen fa kullan akhadna bidambihi dunubay galeen waay markaas ilaahay wuxuu ka dambeysiyay wama kaana allahu liyadlimahum alla muusan ahaanin adoomadiisa mid dulminaya walakin kaanuu anfusahum yadlimuuna ayagaa naftooda dulmiyey khaladaadkay galeen baa loo baabi'iyey xadiidkii aynu hadda soo marnay nebigu markuu ka hadlayay daacuunka wuxuu yidhi soo ma ahayn ina hada alwabaa'a rijzun ahlaka allahu bihi alumama qablakum cadaab buu ahaa daacuunku ummado idinka horreeyay ilaahay ku halaagoo ku baabi'iyey xanuunku marka waa ciquubo gaalada ilahay waa kaga argoosanaya waa ku cadaabaya waa ku ciqaabaya waa ku laynaya qur-aankii sunnadaa sheegaya soo saas maa qur-aankii sunnadii baa sidaa u sharxaya annaga dad muslimiin oo qur-aan iyo sunno rumaysan baanu nahay mulxidiin ma lihin diin laawayaal ah ayib xikamka ku jira waxaa ka mida masaa'ibta addoommada ku dhacaysa in addoommada lagaga celiyo kibirka iyo xadgudubka in noloshooda laga dhigo nolol waxoogaa isu dheelitiranoo xaggana ayna u gudbin xaggana aysan u dhicin maxaa yeelay haddii barwaaqo lagu sii daayo oo masaa'ibta laga ilaaliyo way kibrayaan wayna qooqayaan waana dabeecada ilaahaygii abuurtay baa garanaya inay sidaa yihiin saas daraaddeed baa alla wuxuu yidhi walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi walakin yunazilu biqadarin maa yashaa innahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay hadduu addoommadiisa risqiga u fidin lahaa sanad walba barwaaqo looga dhigi lahaa xooluhu u dhali lahaayeen beeruhu u bixi lahaayeen barwaaqo un loo dayn lahaa way qooqi lahaayeen buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala way kibri lahaayeen laakiin ilaahay wuxuu soo dejinayo qadarkuu rabuu soo dejinayaa sanad baa la barwaaqaynayaa xoolihii baa u tarmaya beerihii baa baxaya waa la barwaaqoobayaa markay cirkaa isla marayaan oo ay waxoogaa ama kibreen ama kibir galay ayaa sanadka dambe qiyaastii baa la yaraynayaa xoolihii baa la baabi'inayaa soo ma dadkii baa dhimanaya waa la soo noqonayaa bini aadamka miskiinnimadiisa la tusaya soo ma marka zajri baa ku jira waxaa ku jira mustaqbalka markaad aragto masaa'ibtan dhacaysa inay dunuub ku imaanayso inuu ruuxu iska ilaaliyo soo ma war hooy waana qisaska qur-aanka kariimka ah marka laynooga warramayo ummadihii hore wixii ku dhacay cibarkii xikamka ku jira waxaa ka mida wixii iyaga lagu halaagay iska ilaaliya marka waa darsi islaaliya ayib kuwaasi waa xikam caam ah waxaa ku jira xikmado khaasa oo dadka muslimiinta ah markay masaa'ibtu ku dhacdo soo hadda nimankii aan soo sheegnay warkooda kuma jirin hadduu yahay waxaan wax ilaahay soo diray muxuu muslimiinta ugu dhacay soo ma oo maxaa xaramkii iyo dadkii cibaadaysanaya loogu salliday soo warkooda saa ka mid ma ahayn marka gaalada ilaahay uu ku sallidayo masaa'ibta iyo markuu muslimiinta ku sallidayo way kala duwan tahay meelaha qaarkoodna way wadaagayaan muslimiinta mu'miniintuna waxbay kaga duwan yihiin gaalada marka lagu sallidayo mu'miniinta musiibo ha ahaato cadaab ha ahaado cuquubo ha ahaato laakiin dhanka kale waxaa ku jirta masaalix waaweyn baa ku jirta oo iyaga ugu jirta maxaa ka mid waxaa ka mid a maalan ruuxa muslimka markay musiibadu ku dhacdee mu'minka ah dembi dhaaf baa ugu jira nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam maa yusiibu almu'mina min wasabin walaa nasabin walaa hammin walaa xasanin walaa ghammin walaa adaa xata ashawka yushaakuha ilaa kafara allahu biha min khataayaahu mu'minka musiiba kuma dhacdo dhib rafaad hammi murug walbahaar dhib kale xataa qodaxda mudaysana ha noqotee ilaa ilaahay dunuubtiisu ku dhaafaa waa xadiid muttafaqa soo in lagu dembi dhaaf ma jecel waxaa laga yaabaa acmaashaadu inay keeni weydo dembi dhaaf istighfaartaadu inay keeni weydo dembi dhaaf ama lagu waafajin waayo alla inuu dembi dhaaf kaaga dhigo masaa'ibtan kugu dhacaysa ayib laba mid ka fiican marka dembigaaga in lagu daayo lagugu cadaabo iyo waxoogaa cudur iyo musiibo intay kuu soo hormartay adduunyada in ilaahay kuugu dhaafo kee roon waata maslaxadu marka laga yaabo adiga inaynu kuu muuqan ayib axaadiista macnaha tilmaamaysa waa xadiid mutawaatir awaan
إن مصائب تدم داف كنا المؤمنين تا ومتواتر حديث تاس طيب وحكم ذا رفع الدرجات مؤمن كمركي مصيبته كل عضو درجات بإله كروج قاده لكن درجات كعلماء قار وحي ليهن وحي كرلتها مركو مصيبته كصبره مصيبة دي باكو كل عضو مسألة الدم داف كوا مسألة كله لكن إن درجات عتكه شو ثواب كهشو صبر بيوبانده مركا تكون صبر تمركا أولنا واتكهلي درجاتنا والله كر له قادي وحكتوس يسجنا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل تكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل حتى فلا يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه ذلك ابن حبان يا حاكم غير قد صاري روح واحد شر إلهي منزلة سرت شنده وقا قري درجة سر الله قري عملك أوسميين وناكسن درجة كوما قاري كرو الله أكتسن درجة سر وقا قري مركزو إلهي امتحانية مصائب بكر ذيا سيد درجة سو قارو يا صلاة هذه الصوم كاجي عبادات كاجي وحيكو قارسين وين ماشي إلهي كو قريب كو قارسين وين سي إلهي كو قارسية مركز مصائب بكو صلي ذيا سي درجة أدو قارو marka darajaadna muuminiintu waa ku helaan ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala waxa kamida ilaahay jannadiisa ruux nadiif ruuxan ahayn ma galo sidaas daraadeed masaa'ibtu muuminiinta marka la fiiriyo waa cadaab soo hormaray oo lagaga baajinayo midkii dambe sida waxa tilmaamaya xadiisu abi hurayra nabiga sallallahu alayhi wasallam ruuxan uu sanayu booqday abu hurayra la socday ninka xanuun adag baa ruuxa haya markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam abshir bisharaysa buu ku yiri ninkii xanuunsanay fa inna allaha yaqulu hiya nari usallituha ala abdi almu'min fi dunya xanuunkani waa naartaydi adoonkayga mu'minkaanan adduunka ku sallidaya litakuna hadhahu min an-nari fi al-akhirah deefti naarta aakhira uu kulaha si adduunka ugu qaato aakhira aanan u cadaabin ayaan naartaydii adduunka kuugu soo hormarinaa waa marka xanuunkan u adkayso qandhadan iyo rafaadkan iyo cudurradan iyo u dulqaado wax ka weyn baa ku jira maslaxa ka weyn baa kuugu jirta in cadaab aakhira lagu geliyo soo marnaanto xanuunkan yarkay adduunka saas waa طيب احمد بن ماجه التلميذ غير كود باصوصر وحديث صحيح waxaasoo dhan waxa ka muhiimsan xanuunka ruuxa muuminka khaasatan xanuunada halista haduu u dhinto waa shahaado wuxuu la darajo noqonaya sida ruuxa lagu dilay macrakada dagaalka gaalada ruuxa lagu dilay oo kale ayaduna soo maslaxa weyn ma waa farbada cudurrada halista marka waa badan yahay ee shahaadada lagu qaato waxa kamida nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxi daacuun u dhinta waa shahiid ruux calool shuban u dhinta ya ali jire kaloramiyo shu calool shuban ruuxi u dhinta waa shahiid ruuxi biyuhu dilaan oo biyo ku dhinta waa shahiid ruuxi meeli ku dunto guri baa ku dumay dhisma ku dumay uu ku dhintay waa shahiid ruuxa macrakada dagaalka lagu dilay waa shahiid islaanta ilmaha ku dhimatay iyadoo foolanaysa dhimatay ilmihii baa sabab u noqday oo dhimatay fooshi ayaduna waa shahiid buu nabi sallallahu alayhi wasallam ama nifaaskeedii bay u dhimatay طيب روح الدب كدعي دب دلي والشهيد والنبي صلى الله عليه وسلم عذر دين عقله وذات جنب الليلة روحي يقول انت شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم عذر كقاحة الليلة روحي يقول انت شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم يا ويتخذ منكم شهداء الله مركو كور رمي الدجال كأوتشيدية قال هذا إن لا دجالمو مصلحتي حكمك كوتشيرا مركو الله كور رمي وحو يلي حكمة وحكمة إنه أدومدي سكسم استقار شهداء سمع إني أدومدي الشهداء كصبحان الله درتي وشهيدي أكتي سنة درجات كوياشة أيا كمدة حكمك كوتشيرا حنون نضا لكن تتك عقل قاب كما قونت لهين أين قاري كرينين معاني ذا أي حكم كاسجا سيداس درادة بعد قرن كرتان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره النبي يقولها من يريد الله به خيرا يصيب منه روحوا إلهي خير للربو وأصيبه يا
حديث ابن حبان كوي با وحو ليه النبي صلى الله عليه وسلم نبا وي من xoog badan oo geel jiro oo malaha waligi ba xanuunsan markaasuu nabigu wuxuu ku yiri umilda ma taqaan umildam waa qandhada war qandho ma taqaan maya waliga maadan qandhanin maana qandhanin waliga xanuun kuma qabanin ninkii markuu dhaqaaqay ayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ruuxii doonaya nin ahli naar inuu arko ninka fiiriyo nabigu sallallahu alayhi wasallam bimaana waxa way hadaaba lagu qabanin ba ya gaar ahaan aad saaxiib macsiyato dunuubna leedahay hadana xanuunka laga ilaaliyo gadaal bay jirtaa way macnaha sooma dhici kartaa inuu ilaahay ku cafiyo dhici kartaa in lagu ciqaabo wallahu a'lam معناها سهدنا وحكوا إيمانه حديث كتقانين النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ضدك وقو امتحان بدن إلهي امتحانه والنبي ذا صالحين تاكحي سيد اللوكل في عين يبقى امتحان ضدك وكل بدين روح والبوح على امتحانه يقدر كالدين تي سلطان تهيب النبي صلى الله عليه وسلم امتحان كاسواك وامتحان كمصائبته وإلهي الدولة يا أدومدي سينو كدر شيء وقدم يدافع كدر شيء وحكسي سومارتا طيب حكم كاسا مركا كجرا أريد حكتا وحي تهيا أوبان إن يدنا تلمانو موقف كروح مسلم كان لو جبها هي مصيبة ومركا يدعدو محي تهي وحواجب إن تكون صبرتو سأستردد أي إلهي وحوري ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلهي قلبي جاء هنون أنت وحلاقة وضع إنه صبر كوافتشيو صبر كوحا كسي في عن يا وحي علم ذي هذا الرضا إن هذا المصيبة دي كوكود عاد الرالي كل نقطة وحا كسي في عن مصيبة كوكود عاد إنها تكشف كردو وزيد درجة علم ذي أن الصبر كواجبة لبضا كلوا مستحب نظر رالي كل نقطة إنها تكشف كردو waxa laga yaabaa inaad leeyahay bantiino leedihiin oo musiibo ugu dhacday seen raali ugu noqoni kaba daran ee musiibo ugu dhacday seen uga shukrini waa sharxi lahayn laakiin waqtigan inoo saamaxay munaasabaad kale insha Allah taala laana dhinac markaad ka fiiriso masaa'ibtani ni'am bay noqoni ilaahay shar maxdiya ma abuuro Allah tabaaraka wa taala markuu adoomadiisa musiibo ku keeno musiibadaasi muslimiinna mu'miniin shaki ma laha maslaxada ku jirta ka weyn dhibkan musiibada ku jira adiga marka seed ku heli kartaa ku dareemi kartaa waa mas'ala sharx u baahan waxa loo baahan yahay sidoo kale inaynu ku waajahno xanuunada ama masaa'ibta wax la yiraahdo at-tawakkul ala Allah inaan ilaahay tala saarano saastaradeed argagaxan faraha badan iyo naxidintan iyo orodkan iyo kala cararkan iyo lugta la isku salaamahay iyo bahashi ahayd waxaan adduunka ka jiro bahashi inuu soo gaarinba dadkii inay dhintaan maqarka u saaran yihiin waxaasi shaqo mu'min ma sooma waxa kala duwan taxadarka u tagi doona si xanuunka looga taxadari seel daawo loogu raadin malis daaweyn karo mas'ala kale laakiin adoon lagu soo gaarinba yaa geeri hortay dhintay inaad noqoto oo naftu ka dhacdaba sax ma ilaahay tala saaro waxaan ilaahay cid ugu talagalay buu asiibi cid uusan ugu talagelinna asiibi maayo عدو أصيبينا ويسي قرنتهي ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ومبدئي أنا كصورني الإيمان بالقضاء والقدر طيب تام عليه ذو ما هيا لقى فهمين حنون كاني هل يسود يبو يعني وحوي محوها هاي يعني لقادن إجراءات كي بروسيس كالسكو إلى لنا يعني لقادن ما لكن أدونك مؤمنك إلهي بوكو حرين قلبي يسن إلهي بوكو حرين طيب قضبك حقين دونين إن أنت المان وحكت المان وحوي هاي حدي ودنبي كوي مت وحنو كذا مصيبة ده يعود الردي مصائبته حدي الذنوب لك علي كتمت أما قال الدنبي أي قش وقال لي ما أما ضد مسلمين الدنبي أي قلين بمصيبة ده كتمت كوا أن دنبي لهين محو ugu dhacaya soo saalbayn war saalixiintii dadkii diinta u taagnaa iyo culimadii iyo dadkii zuhaada dadkii ahlul khayrka abu cudurku ku dhacayay seebu dambi ugu yimid seebu dambi ku keenay su'aal bay sooma taana wax way jawaabteedu iyadana way cadahay quraanka kariimkuna waa caday xadiiska nabiguna waa caday sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu inoo sheegay markay masaa'ibtii fitanku yimaadaan
intii sababta u ahayd kaliya inuusan ku ekaanaynin in kalena uu gaari doono ayadaasi wattaquu fitnatan la tusiibanna alladheena dhalamuu minkum khaassa waxaad iska jirtaan fitno intii dulmiga samaysay kaliya aan ku ekaan doonin ee markay dhalato dadka wada camimi doonto طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسي عديسي حديث زينب بنت جحش با كميد البخاري ومسلم سو ساري النبي صلى الله عليه وسلم وحي تري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا النبي قال اسو غلي اسو ارغغخسن زينب اسو غلي او له لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لا اله الا الله عرب هلاك با اسغناده شر دو حقي سهلاك uga sugnaaday فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ابو النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج تادكي كوئكا عليني يا انت سوك لغا فري ابو النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا سو فكينا بس واحد طيب مركز زينب وحي كتر يا رسول الله ان نهلك وفينا الصالحون رسولك الله يوميان لهلاقي انغو ددكي صالحين تا وناغسنا نغو دخجيران النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر فيكم القبث ها idinko dadkii wanaagsan idin dhex joogan baa la idin halaagi hadii dhexdiina xumaantu ku badato buu nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaali xumaantan badatay waxa ka dhalanaya musiibadii markay dhalatana intii xumaanta sameysay ku ekaan mayse in kalena way gaari طيب وما حيساسي ku dhacday de ilaahay baa qadaray ma ilaahay baa la doodi ilaahay yow intan kale maxaad ugu riday adu ma dhigi kartaa haddana haddaad su-aashaa keentana jawaab baa jirto xikmadda waa la garanaya waa la caddeeyey waxaa ka mid ah axaadiista macnaha caddaynaysa xadiidu caaisha bukhaari muslim baa soo saaray sidoo kale rasuulku wuxuu uhi sal alla alay wasalam yaqzuu jayshun alkacba ciidan baa kacbada ku duuli doona faida kaanuu bibaydaa min alardi yukhsafu biawalihim waaaakhirihim ciidankii kacbada duulaanka kusii ahaa meel bannaan oo dhexdaa markay sii marayaan baa koodii hore iyo kooda dambeba dhulka lala goynaya waa la wada halaagi عائشة واحد الرسول كلا وحن كوري كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم سيل ليس لها لاقيا إيجو أي كود احتران ضد كودي إسك السوق شوكتها إيه ضد عن أيجا بكم ده هاي رواية كلا وحيد هذا هاي كولا سوق قصبي على الصعد يعني قار جد كيف كذا صعد يعني وح الله صعد ما قرنا يعني كوا سوق إسك شوكين وح الله صعد وما قرنا يعني كوا سي دم بمال وإسك الله صعد صوما dadkaasaaba la socda dambi aan lahayn ujeedaday u socdaan aan la wadaagin see loo wada halaagayaa bay tiri nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa aakhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim wa laysla halaagi buu nabigu kullu dhulka la goyn laakiin aakhira marka la gaaro nin walba niyadii uu ku socday baa lagu soo saaray ya kii duulaan u socdayna kacba nin ku duulaya niyadiisii baa lagu soo saaray wal cadaabi kii aan waxba kar warhaynin oo la xudkan col iyo abaarba moogaha kaasina hidaniyadii uu meesha ku socdo in baa isaga lagu xisaabinaya laakiin adduunka waa la isla halaag buu nabiga sallallahu alayhi wasallam Soomaaliyeed waa meesha Soomaalidu yiraahdaan dab munaafiq shiday mu'min baa ku gubta ama muslim baa ku gubta dabku mar hadduu kaco ma muslim iyo mu'min buu kala yaqaanaa munaafiq yani waxa kada sabab waa yeelan kara gaalku sabab waa u noqon kara mu'minka caasiga dambigiisu sabab waa u noqon kara laakiin markuu kaco waxa way wuxuu gaarayaa dad kale uu gaarayaa ilaahay baa sida qadaray dadka kale uu gaarayo iyagu dambi ma lahe miyaa lagu ciqaabay ilaahay baa ku rido ku ibtileeyay laakiin iyaga masaalix baa ugu jirto waa kan soo sharaxnay Sooma waxa lagu ridayaa iyaga masaalix kale ku jirta dana kale oo uga fiican inaysan ku dhicin baa iyaga ugu jirta saan soo sharaxnay sidaas daraadeed ayaa waxay jawaab u tahay taasi daacuunkii Umwaas ee saxaabada ku dhacay ee laayay macade ilaahay buu ahaa jawaabteedii meel ya musiibo ilaahay keenay buu ahaa dambi inay ku timidna shaki male laakiin haddana intii ay disho saxaabada iyo mu'miniinta shahaaday ku qaateen oo yattakhidha minkum shuhada طيب qodobka xiga iyadana u baahan inaynu waxoogaa isdul taagno waxa weeye haddii la yidhaahdo waxaan ilaahay baa keenay musaayibtan ilaahay baa keenay ilaahay baa addoommadiisa ku salliday iyaga dembigoodaana sabab u ah macnaheedu ma waxa weeyaan cudurka ha laysu dhiibo
yaan daawo la raadinin yaan laga hortagin dadku ku dhacayaan la daaweynin yaan muxuu ahaayay xajri lagu sameeynin oo lamid meel lagu xidhin ma saasa laga wada labada macna miyay kala laazimayaan maya waa musiibo ilaahay keenay haddana waxa la rabaa bini aadamku inuu qaato asbaabtu kaga hortagi lahaa ama ku daaweyn lahaa taana diinta inoo sheegtay iskama hor imaanayso musiibo ilaahay weeye iyo iska daaweeyo ka hortago dhaqaatiirtu baadhis ha sameeyeen dadka jirayna hala daaweeyo iskama hor imaanayso ninka fahamkiisu iska hor keenay baa wax ka khaldan yihiin laakiin diintu iskama hor keenin sidaas daraadeed war cudurka ha laga hortago wax walba diinta yaan loo tiirinin iyo meehay wadaadadu waxayna garanin bay ka hadlayaan war saxsan ma aha cudurka in ilaahay loo tiiriyo abuurkiisa keenidiisa sabab ahaantana bini aadamkii wuxuu sameeyay loo tiiriyo haddana dhanka kale shariicadu waxayna amraysaa inaan isdaaweyno sooma shariicadii ina tiri waxani waa musiibo ilaahay baa keenay ba haddana waxayna leedahay iska daaweeye sooma waxa ku tusaya nusuus fara badan quraan kariimka oo ku soo aroortay isdaaweyntu sooma طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسي شرح بل النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب داء الدواء برئ بإذن الله عذر كاستداولي عذر كي يداودي سي مركي إسهلان روحوا وعافي ماذا يا لكن محوكوا عافي ماذا يا بإذن الله صمرت إلهي إذن كي سوا هدان داودا يعذر كانوا إسليهين oo haddana ilaahay uusan idmin kuma daawoobaysid biidn illah halka waxaynu ka fahanay cudur aan daawo lahayn ilaahay ma soo dejinin hadda soo ma jiraan cudurro fara badan oo bini aadamku daawo u laayahay sooma ma aha inayna daawo lahayn daawo way leeyihiin laakiin bini aadamka jaahilka ah wali looma furin daawooyinkan ay dhaqaatiirta iyo bini aadamku maalinba mid baranayaanna ma aha wax cusub ay sameeyeene waa sir kownka ku jirto ilaahay ku abuuray oo maalinba qayb loo faydayo la tusayo waay haddana maanta intan qaata qaybahan kale ma wali qolo kale la sugaya Soomaali marka cudur aan daawo lahayn ma jire istaaweeya bu nabi sallallahu alayhi wasallam macnaheedu haddaynu si kale u dhagno waxa weeye musiibadu waa qadar ilaahay daawada la isaga daaweynayna waa qadar ilaahay قدر إلهي بان قدر إلهي قد دفعنينا صوما سأصدرت بان نبينا وحده الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما يشاء داود اللفتيد وقدر إلهي داود وقدر مصيبتنا وقدر لبضودنا وحلين لي سوء استعمالا تداوي عباد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم أدود ميلي إسداوية إلهي داوى مسود الجنين عذر مسود الجنين إلا داوى أسود الجنين هل عذر موية ابن النبي صلى الله عليه وسلم هل كعذر يا قرنه ها ودأده ضغني وداوى ملئ يا مرة دادو قوذ لأن يرنما إن لقوس عليه صورة قلبه هرين بعضو سيسعوني هل كعذر موية انت كالورن داوى إلى ذهب النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه طيب معناها سوى معناه بهان إنه أدو فهنوه إلهي مقادير تيسا وحو تلقى إن ليسكو دفعيو مدن إساقا كيني وحونا إنوتشي دي تن أنا كيني تن كغهرتك وفي صدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركي ودعي سنة داعون كدعي الشام كدعي عمر أيا بحي مدينة كبحي الشام بو آذي إذا مدي رقي هو قاميني أو عبيدة بن الجراح يركم دهين أيام مركب وحي كجهري ماذا أنتو سن شام قارين شام نوحى بابئين يا طاعون عمر ميل حقوقها كذي مركزوه ولا تشهدي صحابة دي بل يقول يا رب يقول مهاجرين تي ولا تشهدي أنصار يقول يا رب ولا تشهدي مسلمة فتح يقول يا رب ركي فتح مكة سو إسلام سو يقول ولا تشهدي ورمحان سمينا ciidan kiibu wada akhyaartii saxaabada la socota magalla mise waa noqonaa laga tashanay taladii waxay u badatay aan ka noqono oo yeenan gelin markaana wax nas lama hayo oo nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam Umar waa noqday marka wuxuu go'aansaday inuu noqdo dadkii dhexdoodii buu dhawaaqay wuxuu inni musabbihun ala dhahrin fa asbihu alayhi
بري هدو واقو إيبريو قاديد كان صارنا هاي إذن كنا قاديد كي نفولا ونقونا نابل أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة وحكويل أفرارا من قدر الله يا عمر عمر وما قدر الله بعد كعر رسابه كويل يا طاعونك وقدر الله قدر الله ميات كعر ربكويل ورقاز عمر وحويل لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ألا الله وحيكون في إننا أن أذيق هاي إنه هذا كان يكسف له نعم بول نفر من قدر الله إلى قدر الله كان أن كعرر إنه عذر كان إلهي بقدري ماشان وقعرر إنه الصواب تيدنا إلهي بقدري قدر إلهي ما كعرر قدر إلهي نوا وعرر مركزه لي مثاله كان وحير كورن أذو جيل وته هذا تك صهوبة تك لبطنا عليه دين عوا برواقه دين عنا وأبر هذا دنك برواقة جيلا قد قسيسو سو إلهي قدر كيسمات قد قسين هابوي دنك أبارته هذا دقسيسو ضد دكتنا سو قدر إلهي ماذا نقول دكين هابوي محارب تاود مرك سمارت مرك داود وقدر إلهي إن لبارو وقدر إلهي وإن لبارو وإن للراديو أما الطلال هالنقطية كهرتك هالنقط أما ضدك يكون عدي قابك لو داوين لهالنقط أما كوا أين ولي سو قاعدين سيدي لو حكمين لهالنقط وإلهي ووحل الله دري إن الصمين وكده ده لبني آدم ما هو وح شريعة كهر إيمانا يا ما سيقول لي وح شريعة هردينا يا كهر إيمانا يا شريعة وفريس أنت مركو عمر السمية كدب وحى يمد وأرنت سيد عبد الرحمن بن عوف وماشى كم مقنع مركز أوحيلي نبي محمد باوحان كم مقلة صلى الله عليه وسلم السجولة هذا ظل مقشان ضاعون كرعي هجلينا هذا كم مقنتين هجلينا هذا تشوكتان هكبحنا إذن كوك عرّي مركو عمر حديث كان النبي كم مقلي اجتهاد كيسي وقان كيسي وافق صوما فحمد الله ثم انصرف إلهي بكم هذا عليي مسألة زي وعدات معنا كدي ابن عمر والله بتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقهي الصحة كاوي مرك ما هذا إسكال بلك عي أو حوجا أنتي إنجليش يرى أخرستين أما دور كتاب يرى لق ميستين محو هاي إلهي بقدير تيسير نصوصتي يوحي يسكر فنها يسكر كينا يا ما فقهي من فهم كصحة الدين تساس واحد إلهي مصائب تيسا يوحي له أدومدي سأوتشي دي مرنا إسكامه ريمانا يعني الشريعة إلهي علمي إسكامه ريماد هذه حقيقة علمي والله والنوع علم النذري اللي يلاهده وحي إلى التهيئة وحي إلى التهيئة بيننا والنقضاء رونا والنقضاء لكن علمي تجريبي بين آدم كؤوت هابتي لاب كلا قليل علمي قاسم مرنا قرآن كي يصنع كهرمان مايا لأنه علم إلهي كنوع علم إلهي لابع علمي إلهي لينا إسكامه ريمادان لكن فهم كبين آدم كان مربط إسكور كيني طيب وحان قضب يدنا لو هذا قضب بانك قبحنا إن شاء الله تعالى قار كودو إشكال قليل إلهي أنتو وحكا لبين آدم كوها لاقي لها وهيلي كرا وحكا وويني محو فايرس كان يركع وصوت رأي محو إلهي وقبها هين قل يا سوى تشيس وحوض إلهي يحكامتي سوى لقو تشيس سنة وقال لي ما واضح قال لي ما عد واحد هذا مسلم تهينا وقال لي ما عد هذا قال سي أهيدنا ملحدنا إلهي كهنوني وإسكعد هاي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما إلهي آيات كيسي رسول كيسات كوتشيسيسا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وحبها عذر دارنينا مؤمنين هذا هيدين قالوا ذي دينتي واتكبح ذين بالله تبارك وتعالى إلهي اللي ما تشيس دينتي سنة اللي ما تشيس أحكام دي سنة اللي ما تشيس آيدي سنة اللي ما تشيس سومالي ما أنت اللي بعتها يستوحى كم ده يعني وحي برتين وحلي هذا كومنتي بيبرتين ومد أن موقتها امتحان كان روحه أها أنت آدم قرال كجلينه وسيده وحلو قراء آدم وحدوبها أنت آداب تقرال كينات برات وحين نقطة عيد والبين وحسك قرأ مركز واحد مدامركو تعليقين ينو سن إلهي باركين بقى وحلا الصعد وسنشرين ملايين وسنطول صارنين وحد دون يسك قري قار واحد بتشير كفر برنا يبا قار بقى قرال كبرنا يبا قار بقى كبرنا قاب كسي وحلون نقديو سيدا كومنتي لوس ما يقار بقى كبرنا ورواي هي هذا حتى كبر برنا هذا الوحوجا أما إسك معقولة أما الدم بك إيمانين كبر برو لكن أنا هلس إسكلي سماه
مسألة إلهي تبارك وتعالى مخلوقات كي سميت ضعيفة محو صدر سنة وحي لم يتهي أوكله قل يهيري إلهي محو كان عذا يبهاش اللي إلى هذا محي عارضة محو مثال وقصة ما السنة وواحد عموه إلهي محو كجواب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سؤال حدما إلهي محو فيروس كصوت رسالة يا محو حيوان كير كما ركاد قد كيبا بتكون عذيبا وحب إلهي يقول لك لو حيالها يركع كان عذي مثال ذو الصمين وحيالها ضمادة قصة لذيه أديكوا كلا إن لقول ميوه وحابت كل عذيبا والله يضل به كثيرا إن بدن بو إلهي كل منيه وكوا ساء وجس يوكله ويهدي به كثيرا إن بدن إلهي وكوا هنونين يا ووحي قرنا يا إن حكمة ربي كتشرت أما هفهمان أما يسفهم مد الله بعده إيه هدي إلهي أدومدي سمرودي كصدر له صومين دهن مرودي ومركب ربه ونجح حق بدنا صوما كبيرانيين تين مرودي لوجو صدره إن فيروس ير لوجو صدره كيف حكمة دولو يا فيروس ير لوجو صدره وأدون كيو خل جليو ومريكان يتشينا يا عالم كيو كعوفريستو أول الرفاضو تاسع حكمة دين لفهمه ولو صومارت حكمة الربيين لفهمه تاسع ولو مركا حكمة داسا كتشرت إلهينا وحو دونو درسان تبارك وتعالى وحاجز قلنا يانا بتشيره مسألة كاليتو مهمة باندونا يانا هلكا قليو مصائبة إلهي تبارك وتعالى مقادير تبلعية لو ما دلي شدو الدم بقاقي عيبت هذا لكن مقادير هذا الدم بكل هين ولا دلي شده سيداس دراديد وحي الدم بأتوبت بوبايه وحي مصيبة هذا الدم بكل هين الصبر بوبايه حتى المامز آيات القرآن كإله فاصبر إن وعد الله حق وحي كوكو يمد صبر محال قدم بيسيه واستغفر لذنبك محال الديدية ذنبك قاقينا ترى إلهي بقدري وردنبك كطوبت كان إلهي بقى يقول قدري محال قربته وروحني واخلدنيه إلهي بقدري وردتك حد مني إلهي بقدري خلط كاغا إن أدود ليشته إلهي بقدر سحما صوما ساس دردد بوحلي لنا قدرك وحلو حجيستا مصائبتا إلا ما حجيستا معايبتا وعيبتا هذا هو صومالي دون وماشي ترى هذا الدقون قدر تقالنا إيه لقى ما كرهنا وحي خلط دوا هذا يقول ترى هذا قدر إلهي هو صحنا ما حتى عقلا موسى صح وهاي haddii maqaadiirta ay noqoto khaladaadka in loo daliishado ruux isku difaacana cid walba gali adiga laftaada xoolahaaga inta la qaato oo lagu dhaco oo lagu dilo oo lagu dharbaaxo wax kasta lagu sameeyo ayaa wax lagu leeyahay sabir de waa maqaadiire soo saasma adeer hay su'aali waa maqaadiire baa lagu leeyahay marka maqaadiirta halka looma daliishado ceebtaada ka toobad keen qaadana mas'uuliyadeeda Soomaaliyeed laakiin dhanka wixii aadan sabab u lahayn oo dambigiisa aadan lahayn sax ku sabir وأنا دليشان كرتها إسلام مسألة هذا وحكوا إمارة حديث كي دحمري قصة دحمرت النبي موسى يا نبي آدم نبي موسى نبي آدم بوضح الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم موسى وحكوا آدم أذيك واحد هنيك خلت كيسو شنادا نقصو صار خلت أدق شيء بعد شنادا نقصو صار مركز آدم وحكوا موسى إلهي باكو دورته هذا الكيسي رسالات كيسو كود دورتي ما واحد يقول ايدينيسا يقول دغالميسا امر الهي قدري انتان لي ابورين انتان الهي بي ابورين wax qadarna miyad Muuse ugu haysata nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa hajja adam Muuse wala gar helay marka adam xageebu u xujeysanaya ma khaladkii dambigu galay buu u xujeysanaya maya ee wuxuu leeyahay dambigayga inay ka dhalato adoomada in laga soo saaro bini aadamka jannada dhulka la keeno qadar ilaahay bay ahayd anu geedkii baan cunay khalad buu ahaa khaladkaygu halkaas waana ka toobad keenay marka wax ilaahay qadaray aadamow waxaan muusow haygu eedaynin saas way macna waa xadiis saxiixa
وحصو صاري بخاري ومسلم قضبك قدام بين كجب حين وحويه علماء شريعة هي علماء علمي عافماتك أما علماء فلك أما علماء مصائب تي حوادث تكون تخصصتي علماء إيدا سيدة دبا محيك لليه قالوا وصل بتقول بس هدي قيبت هذا كهذا شو واحد تقانو ما حد جذب يجهل به مايا علماء أنه كوا هذا اللي مثل حنونك علماء عافماتك نوعيده ذاك القدس مركي كهالليان مصائبتنا من مصيبة عذر كهالليان دنكي واه الله وحويان عذر كان محاكياني محاس سببي صوبتي الرادينية بكتيريا طيب فيروس محو كدش سوما أدو أما في دمير بو كدش شيء أما مص بو كدش شيء أما معمل إيا اللاب لغو سمين هيبو كفا كضيد فيروس كني أما محوها هاي ميجا دون توتيري أما الضوفار بو كي يمد أما الشمبراء ضليده سوما صوبتي الرادينية صوبتي مركي هلانا waxay doonayaan inay xanuunkan u sii abtiriyaan haduu qaybo kala gadsan leeyahay oo ay yaani wax weeye ay u sii bahbah u sii kala sameeyaan fayraskan hadda waa bah gooniye Soomaalida fayrasyadu waa barbadin Soomaa waa bah gooniye markaas haddana waxay daraasaynayaan bini aadanka markuu ku dhaco saameyntu ku yeesho xagee uu ka saameeyaa kan hadda wax weeye corona oo kaleeto sanbabku ku dhacaya Soomaa ruuxa neefti baa ku dhagaysa qandhu keenaya waa qufacaya beer ku qabanaya Soomaa kadib jirkii wuxuu bilaabayaa inuu isdifaac yiraahdo isdifaaci jirka wuxuu soo saarayaa awood xoog badan buu soo saarayaa oo cadawgan iska celi buu leeyahay difaaca xoog badan ee jirka ka imaanaya laftiisa dib uu la imaanaya waxaas waa waxay dhaqaatiirtu qoreen anu dhakhtar may laakiin waxa jira culumta qaybo akhriska lagu fahmi karo iyo qaybo hoose oo ninkii ku takhasusay uu garan karo Soomaa طيب inahaas waa inaha marka kadibna dhaqaatiirtu markay fahmaan sababta iyo xanuunkan bini'aadamku soo saameeyo kadib baa waxay raadinayaan daawadiisa maxaa laga hortagi karaa maxaa lagu daaweyn karaa dhaqaatiirta shaqadooda taawa shaqada noocaas in looga dambeeyana way tahay ayaga takhasus kale حتى علماء الشريعة مركي دونا يا برنامج كنوع عسو كلا وين دخاتير تأهل كيسة وقدم بيا وصح صوما لكن دخاتير تو كوا مسلم والدين تيقان مويه ميه كو شيء كران حنون كان إلهي باكيني حنون كان إلهي على قدر كدحية يا إسكالي إيه علماء إسكالي صوما حنون كان iyo bini aadamka khaladaadkiisa calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamku galayo iyo xanuunkan calaaqada ka dhaxaysa yaa iska leh ya ma dhaqaatiir baa ku sheegaysa dhaqaatiir baa waxay ku leedahay AIDS-ku wuxuu ka dhashay dambi ilaahay laga galay zina faaftay ya allahumma inuu dhakhtarku muslim yahay oo diinta garanaya mooyee طيب cudurka iyo bini aadamka calaaqada ka dhaxaysa dambiyada bini aadamka iyo masaa'ibtana culimada shariicada iska leh cudurkan Allah keenay Allah keenay ujeedadii xikamka ku jira cadeynteedana culimada iskale dhaqaatiirtu malaha Allahumma dhaqaatiirtii muslimiinta hadana culimada aha markay wax ka qoraan jawaanibta way cadeeyaan way ka hadlaan amma mar dambe oo cilmiga caafimaadka iyo culumta kale maadiga iyo tadiinta la kala saaray ninkan dhakhtarka wuxuu ku sharxi karaa waxyaalo maadi ah inta ka badanna ma dhaafi karo ama maba garanayo ama waaba inkirsan yahay annaga marka jawaanibtii aan dhaqaatiirtu ka hadli karin haday culimadu ka hadlaan ma dhaqaatiirta hawshoodii way faragashadeen ma hawlayna lahayn bay galeen bas hawshoodii way laba jaanib waay dhaqaatiirtuna qayb bay leeyihiin culimada shariicaduna qayb bay leeyihiin qolo walbana qaybtooda ka hadlaysaa ninkii qaybtiisa ka hadlay marka in la yiraahdo hawshii dhaqaatiirtaad gashay bakteeriyadan iyo fayraskan rag baa isgale say u dhashaan iyaga garanay adiga ilaahay buu ka yimid yaa ku yidhe حاجة بعد كأنت ورهذا روك هذه قيبت أنا كأقان سجى قيبت أنا دكتور كأقان نك علماء ده كيقان نك شرع ده يقان كيقان قيبتي سوق هلا كان قيبتي سوق الديني سيدا سوي معنا بل وحقيقة دخاتيرتو إن يسن شيء كرينين
waxyaalo badan oo shariicadu sheegtay oo cudurradan sabab u ah laakiin iyagu ayna gaari karin waxaa ka mid ah maalan nabiga waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri fanaa'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un ummadayda waxa baabi'inay la halaagsamayso waa durid iyo taa'un markaas waxa rasuulka ilaahay ta'niga duridda garanay taa'unku muxuu yahay wuxuu yiri waa uqubo wakhzu a'daa'ikum min al-jinni wuxuu ka iimaanaya durid jinku uu idin duray buu ka iimaanaya jimba ku duray jinkii ku duray ba waxa ka dhashay maxay taa'un dhakhtarkani ma garan karaa calaaqada ka dhaxaysa jinka iyo cudurka dhakhtarku ma garan karaa calaaqada ka dhaxaysa sixirka iyo xanuunka dhakhtarku ma garan karaa calaaqada ka dhaxaysa jinka iyo xanuunka dhakhtarku ma garan karaa isha bini aadanka ilaysiga iyo calaaqada ka dhaxaysa maxay iyo xanuunka ma sheegi karaan qaybaha sharaa'icda ka hadashay diinta ka hadashay jinka bini aadanka saameyntu ku leeyahay sixirka saameyntu ku leeyahay ishu saameyntu ku leedahay muxuu ahaayay waxyaalaha iyo caafimaadka saameyntu ku leeyihiin sida loola tacaaliyo qaabka loo daaweeyana maadaama ayna cudurkii garanaynin iyadana ma garanayaan ruuxi way baarayaan qalab bay gelinayaan ajisay gelinayaan dhinac ka baarayaan taxaliil bay ku sameeyaan waxay leeyihiin ruuxan annaga waa noofayow yahay adeer meel kale la aad ma garan karo waa in wadaad loo keeno oo la quraan saaro sooma waa in adkaar lagu akhriyo sooma waa in ilaahay loo baryo wareede baalkan dhakhtar baa iska laha nagu quuqinine qaybtanadaan ka hadalno sooma dhakhaatiirta qaybtooda waa u ogolahay waana u daynaynaa inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin annagana qayb baan xaq u leenahay qaybtaan u leenahay wax weeyaan inay culimadu ka hadlaan shariicadu maxay ka tiri cudurkan cudurro la midka masaa'ibka maxay ka tiri waxa kamid ah maalan fuqahada qaar kamid ah shaafiiciyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin masaa'ibtan oo kale markay dhacaan oo cudurrada caamka dhacaan masaajidaha laga qunuudo dhakhtar ma dhahayo masaajidka qunuuda ma dhahayo asbaabta cudurrada lagu rafciyayna kamid tahay masaa'ibta asbaabta lagu rafciyaa kamid ducada laana waxay leeyihiin waxay kamid tahay xawaadista caamka ah oo qunuudka asal ahaan loo jiray salaadaha in la qunuudo marka yaani waxaan ka wadaa sax in takhasuska dad kale loo daayo laakiin takhasuskii baa laba kala ah midka maadiga ana dhakhaatiirta iska leh midka macnawiga ah iyo calaaqada cudurrada iyo masaa'ibta ilaahay ka dhaxaysa afcaashiisa iyo siday u saameynayso asbaabta keento bini aadanka dunuubtiisa ah daaweynta lafteeda qaybo kamida oo qaybaha shariicadu tilmaantay ah muxuu ahaayay asbaabta wahaakada qaybahaasi waa qaybahan sharaxnay sidaas daraadeed fahamkaas baa wuxuu yahay fahamka saxda ah iyo in masaa'ibta dhacaysa qaabka loo fahmo wixii la badbaadin karin la badbaadiyo la daaweeyo la baaro laga hortago laakiin haddana maca dalika ma diidayso inay tahay wax musiibo ilaahay ka hortagiina waxaa kamida in ilaahay la baryo tabaaraka wa tacaala dunuubtana laga noqdo dambiyada laga laabto ilaahay loo laabto taasaa kamida waxaan ku khatimayaa ku gabagabaynayaa kuwa ayagu ilaahay caynaya ee diinta caynaya ee jeesjeesaya ee ku xadgudbaya ee qoraalada noocaasa samaynaya keliyata waxaan dhihi karnaa ilaahay idin soo hanuuniyo ilaahay ha idin soo hanuuniyo haddaan idiin heli karno maanta waa idin hanuunin lahay laakiin man yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an waxaanse idin leeyahay kelimaadka aad qoraysaan iyo sidaad u hadlaysaan iyo qaabka aad u hadlaysaan iyo maagidaad ilaahay maagaysaan iyo jeesjeeska aad jeesjeesaysaan waxaad ogaataan ilaahayna dhibi maysaan cid kalena dhibi maysaan waxa ay ku soo noqon doontana waa idinka haddii ilaahay ka baqa laydin yidhi ood sii madax adeegtaanna waidaa qiila lahu ittaqi illaaha akhadathu alcizatu bilithmi kuwa marka ilaahay ka baqa la yidhaha waysiikii way ka sii daraanba alla muxuu yidhi faxasbuhu jahannam waxa idin sugaysa ee idin kaafin doonta haddii wacdi idin kaafin waayo waana idin kaafin weeye ilaahay daaya war nabadgeliya war diinta nabadgeliya war ilaahay aayaadkiisa nabadgeliya haddii laydin kari waayo ood kibirtaan oo aad sii madax adeegtaan faxasbuhu jahannam meel baa idin sugaysa marka ilaahay laga baqo
إلهينا تبارك وتعالى دينتي صحيح حفظيه عذردا إيا مصائبتنا إلهي أمدها كرفعيه إلهي تبارك وتعالى إنتو سنقرد إنها كإلاليو إنتو قرد عين إلهي تبارك وتعالى كعافيه إلهينا تبارك وتعالى هنا قسم التبحية هنا إنك بدباذيه. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.